السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا waxaan nahay masaajidkan jaarka masaajidkaanu nahay waxa weeyaan masaajidkan aad buu dayacay dulmigiisuna wayna wada hayaa waxa weeyaan waxa laga dhigtay waxaan ku rag iyo naagaha isla gala talwaadeysa xabada lagaga dareerin jiray waxaan ku gudaafad buu noqday waxaan ku marka waxa weeyaan dawladda u taalay diintii oo qaafteen wax ka qabtaan marka horena meel munaasib ku ah laga ma dhisin meel dooxa laga dhisay meel waxaan ku dhicaan u qalmin baa laga dhisay daaraba qadareymkana waxa laga qabto wuxuu ku kharaabay waa laga guuray markii la guuray dadka dhistay guureen ee la raray taado waxa hal waa la biliqaystay daaqada iyo albaab iyo waxaan ku hadaad aragtid dadku daaqaduhu gaarsiisan yahay meel marka hore wax laga dhisan muu hayn alla sa qadaray imkana waxa laga qabtay dulmigiisa dawayna wada haya hadaynu nahay dawladeena iyo haday diintii oo qaaftii cid walba way haysaa dulmiga ka socda masaajidka annagu waxaan nahay dhalinyarada ku nool xaafadan in masaajidka wallahi aad buu dayacay waxaan u soo taagneenan ogeenin masaajidkan ayda lagu dhaqan jiray in yararku ay xabagti la soo geli jireen in habeenkii isaqda dhexe ay aanu dhalinyarada xaafadda markana aan ugu iman jirnay nimayo naaga iskula jira wallaahi aad buu dayacay dawladduna waxba kama qabato marka dee waxa loo baahan yahay dawladdu si degdeg masaajidka wax uga qabato maxay haday masaajidka wallaahi in badan buu dayacnaa imika waa 3 saniinta dayacan yahay maxay haytay ayda lagu dhaqdaa jiridaa isla soo gasha maxay hayteen wala aad iyo aad buu dayacay markii horena meel munaasibkiisa laga ma dhisino toox baa laga dhisay maxay haday dawladda waxa leeyahay maxay haday wasaaradda diinta iyo qaafta si degdeg ah uga soo jawaabaan hadii la duminayo hadii si kala oranayaanba daamka 3 sano lagu tikin 2018 bishii shanaad baa dadka laga reey 30 May intaasoo dhan maxay haydeen kharaabad buu ayda galeysay jiridaa galeysay maxay haytay ayda lagu dhaqanay dadka soo galay kutubtii u qaatay roogagi wax kasta cid dariyaashay cid yactirtay midna ma jirto raxiim masaajidkan halkan uu ku dumiyay shingadii baa laga baxay taangigii dhex yaalay macalwaa laga xaday muraayadihii wada jijibiyay ragay naagaha habeenkii soo geli jiray marka waxa fiican in masaajidka meesha laga dumiyo oo meel kale laga dhiso anagu jaarka baan nahay jaarkan masaajidka jaarkiisa aan nahay hadaan waxaan nahayna masaajidkan dhib badan iyo cuqubo badan uu dulman yahay ayda lagu dhaqdaa ayda laga soo saaro laga tagay shishan habeen ku jirto baqtiyaysa ayaan ka soo saarnay intaan islaalaadinoon kornay salaan masaajidkan si dhaqsaa wax loogu qabto si dhaqsaa masaajidkan wax loogu qabto diintii oo qaafto ha u timaado insha Allah waxaan baraynaa si degdeg ah ama washmaaniyo in la dayactiro hagaajiyo ama la dumiyo iyana ka baraynaa oo biyo laga jabiyo imkana biyo ka buuxa ha loogu soo dhaqso insha Allah waanu aad iyo aad ban diintii oo qaaftay inay soo degdegsan rajaynayna dulmi baa ka dhici jiray waxa ka dhici jiray fusuq inamiya habla meesha kali jiray xabagta lagu cabi jiray meesha wayna macabadnay rabadaan taxaaraanta lagu karsan jiray masaajidka tabeetana waxaan doonaynaa wadaadadu inay aad iyo aad ama xaafadda ku dhow aad iyo aad wax looga qabto masaajidka si degdeg ah meel biyo marana uu ku yaala marka horena waa waxaan ku liitar kacsan looma yeedhin imikana uu iska cadibay dadkii hore joogana meesha waa laga raray marka aan masaajidkan wax kaaga sheega ama aan warbixintiisa ku siiyo dadkii meesha dad baa deganaa beel xoog la deganay marka waxa dhacday dadkii deganaa waqtiyada kamida waana daad mareen waa gacankii dhaamka marka horeba meel la dega ma yahay laakiin dadka waatan dhulka laga raaco way iska wada degeen adigu markii dambe beel xoog la degtay dadkii markaa meesha deganaa mar waqtiyada kamida ayaa daad xoog la soo maray oo dadkii dad buu qaatay reeradan buu qaaday caruuruu qaaday qaar markiiba meydkoodii laga soo reebay qaarna maalintii dambe la helay shirkad waxaana dhisay nimankan adigu nimanka masaajidada dhisa anigu aad uma sii dhex gale oo carabahan iyo intay meelahan ka soo qaadaan lacag tuugtii baa gashay xabaglayaashii baa galay kuwii laamahee balaayada kubadda cayaarayay baa soo galay xumayn soo dhan baa soo galay naagihii xabag loo dhan baa soo galay naagihii la tuugaysanaya xabagta la cabayay ilaan qoom waliba qoom xun buu leeyo qoomkiisu wataa macal naagahoodii bay wataa wixii baa soo galay xabagtaa lagu cabay waa la galay dhufays wanaagsan oo ay ku lunto horta ciyaal bay u soo direen waxay yidhaahdeen daaqada jajabiya
bildhii hore daaqadaha lagu bilaabay daaqadu waa kuwii muraadihii beersoolka ahaa lahaa ee wanaagsanaa dabeedna daaqadaha lagu bilaabay daaqadii baa la jajabiyey daaqadii markay dalooshameen cidila hadli weynay ay arkeen inaan ciduu soo dhaqaaqay ayay tallaababa mar soo qaadeen aakhirtaankii albaabka daaradday soo jabiyeen haddaba warbixintu iyadu waa taa soo gaabiyey inankana waxaan leeyahay adeer waad mahadsantay ilaahay warbixinna waad qaasa ilaahay baana ku keenay meesha annaguna sidii baa noo dee wax intaa noo gudbiya haddii culimo iyo qayrkeed loo gudbinayo haddii dawlad loo gudbinayo iyo haddii dadweyne loo sheegayo adeer wuxuu dee warbixin naga geeya waabaanu u baahnayna waad mahadsantay ducaanu kugu ognay waxaad yeeshaa dadaalka halkaaga ka siiwo